الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحنوب بالله بإذن الله الكريم درسي النيل لحاد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. waxaan ku soo jirnay qayb uu kitaabku u qoraahay darsiga lixaad buu ka soo hadlayay ra'yuhu al-ghanama wa safratuhu al-ula ila ash-sham ayaan ku soo jirnay ra'yuhu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yani waxa weeyaan raa'idi raa'ay al-ghanama ariga uu raa'ayay iyo wasafratuhu nabi muhammad safridiisi al-ula horayday ila shaami oo shaam u safray baan ku soo jirnay waxaan soo marnay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam kaana fi siqarihi yar'a al-ghanama li ahli makkah wuxuu ahaa markuu yaraa mid reer makko ariga u ilaaliya ayuu nabigu ahaa sallallahu alayhi wa sallam markuu yaray weeyaan wuxuuna ugu ilaalin jiray biujratin ujradaasoo yaciishu oo noolaanayo minha xaggeeda yacni yaciishu oo noloshiisa nolol maalmeedkiisa oo ka helayo xaggeeda looga jeeda nabi walbaahi rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ari buu ilaaliyey adugu ma ilaalisay baa la yiri markaasuu reer makan ariga u ilaali jira buu yiri xigmadda ku jirta waxa weeye arigu waxaa la yiraahdaa xayawaanka xoolaha ancaamta midka ugu tabarta daran weeye marka si uu ricaayada makhluuqa ilaalintooda si uu ra'fa iyo raxmad ugu yeesho xoolaha iyo ilaalintooda iyo mas'uuliyadu midda makhluuqa ay gogoldhigu si tahay weeyaan xigmad baa ku jirta wa qabla an-nubuwah ari ilaalintaani amma ba'da an-nubuwah nabigu ari ma ilaalin jirin sallallahu alayhi wa sallam nabiga kuma aha ra'yul ghanam kaasu ceeb uma aha ee waxay u tahay ammaan bi u tahay sallallahu alayhi wa sallam walama balaqa nabi muhammad markuu gaaray at-taasi'ata min umrihi sanadii sagaalaad ee da'diis ayuu saafara nabigu wuxuu u safray ila shaami wadanka shaam buu nabigu u safray ma'a ammihi ma'a ammaahu oo idin quraan u maleynaya qaybaha qaar ma'a ammaahu laakiin ma'a ammihi baa la rabaa ma'a ammihi ayaa lagu saxanayaa nabiga adeerkiis la jirkiisu la safray abi daalibin ahaa bitijaratin tijaro ayuuna halka ugu la safray weeyaan adeerkiis buu raacay wadanka shaam buu u raacay daadiisu markay maraysay nabigu laba mar buu shaam u safray laba mar sida siirada ku cad midkan waa midkii koobaad kan labaadna uu noo iman doona insha Allah daadiisa muxuu ku sheegay sanadii sagaalaad laakiin siiradu waxay u badinayaan as-sanata thaniya 10 min umri sanadii 12 ee nabi muhammad daadiisu ay inta maraysay weeyaan 12 sano markuu maray ayuu safarkaani dhacay hoosna kitaabku waa ka qoraya adeerkiis buu la safray iyo niman kale oo tijaarada waday oo wadanka shaam u socda walama qaruba markuu u dhawaaday rasuulku صلى الله عليه وسلم قرب فاعل كده والنبي من بصرى مقالة بصرى اللي يراهده ودن كشام قطع المركو ودوادي راه النبي محمد وحا أركي الراهب ننك الراهب كاه عبادة يستراهب وحا اللي يراهده ننك صوم عديس عن كالصابحين يقول كيسي بيت صوفيات كيس اسكاجره أي الراهب اللي يراهده راهب كاسوحو هاي مسيحيا باولي بالليين نن مسيحي أبوها waxa arkay nin raahiba ee magaciisa la yiraahdo Baxiira Charchiishna meelaha qaar magaciisa ku tilmaamaan ismkii saxda ah laakiin Baxiira ayuu caam ku yahay ninkaas baa arkay faaqbara wuxuu u sheegay ninkii la dhihi jiray Baxiira ammahu nabiga adeerkiis buu u sheegay wuxuu u khabray baan rabaa bi'annahu nabi muhammad sayakunu inuu ahaan doono aakhir al-anbiyaa أنبياء متك ugu dambeeyay inuu noqon doono wadalaba wuxuu ka dalbay adeerkii weeye macnaha waxaan rabaa baxiirihi raahibkii minhu adeerkii nabiga wuxuu ka dalbay oo Abu Daaliba an yarji'a inuu la soo laabto bihi nabi Muhammad inuu la laabto
oo maka u celiyo weeyaan khawfan cabsi daraaddeedu calayhi nabiga uu baqayo ayuu sidaas uga dalbay min caduwinna uga baqayo cadowgaasoo yataraqabuhu nabi maxamed koranaya oo dilkiisa sugaya oo raba inay uga taqallusi waa yahuudda weeyaan cadow buu uga baqay ninku raahibka ah waxaa la yidhi qisada aad buu kitaabka usoo gaabinayaahe ninkaasu meel buu deganaa busra ku taalla mar walba safaraydaanu meesha waa mari jireen mana u soo bixi jirin muddadan geed agtiisaabay degeen baa la yidhi geedkii markay degeen buu arkay geedkiiyo waxa weeyaan laamihiisii inta wareegeen dhinaca nabigu fadhiistay bay wada mareen calayhi salaatu wasalaam hooskiisii markaasay u soo raaracsadeen weliba wuxuu kaloo arkayaa la yidhi meel dhexe maray soo marayeen oo kor uga jeeday daruur haraynaysa ayuu arkay baa la yidhi markaasuu u yeero martiqaad buu sameeyey kulli isku imaaduu yidhi martiqaadkii baa la iskugu yimid markaasuu arrintooda weydiiyey nabigu saa calaamu ka raadinaya ku wareegay calaamadii khaatamunubuwada oo gadaal uga taalla buu arkay baa li nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu u bishaareeyo way weydiiyeen waxay dhaheen awalnama aadan martiqaadi jirin in badan baan wadadan mari jirnay safaray haddaan nahay maxaad maanta noo martiqaadaa la yidhi markaasuu yidhi waxaan idiin martiqaaday arrintan baan arkay calaamadan baan wiilkan ku arkay kutubihii hore taariikhdiisan ka akhriyey waa nin kutubihii hore ka warqaba weeye ahlu kitaabka wuxuu yidhi wuxuuna noqon doonaa aakhir alambiyaa ambiyada kii ugu dambeeyuu noqon doonaa hala ogaada buu yidhi abu daalib buu la hadlo wuxuu yidhi hadday nimanka yahuuddaahi ogaadaan nabiga la tilmaamay oo iman doona inuu wiilkan yahay waaba dilayaan buu yidhi daymayaanba ee la laabo celi waddankiis u celi buu yidhi intaa weeye qisada marka lasoo koobo muxuu u daliishaday aqoontan oo sidaa dhahayo waqad istadalla wuxuu u daliishaday calaa nubuwatihi nabiga nabinimadiisa bicalaamaatihi nabiga calaamaadkiisiibuu u daliishaday allatii calaamaadkaasoo fii kutubi ahli lkitaabi ahlu kitaabka kutubtooda ku sugneed as'ilatun waa midaani waa su'aalo haadihi as'ila bimaadaa maxaybuu kaana ahaa nabi muxamed yashtaqiru mid ku mashquula fii siqarihi yaraantiisa dhexdeed markuu yaraay nabigu muxuu ku mashquuli jiray muxuu ka shaqay jiray muxuu qaban jiray weeyaan wuxuu ilaali jiray yarca alqanaba liahli maka biqaraariida lacag ujraa buu ka qaadan jiray weeyaan mataa goormuu saafara nabi muxamed safray ila shaami goormuu nabigu shaam u safray sanadii uu jiray 12 cumrigiisa su-aasha saddexaad maca man ruux la jirkiis buu saafara nabigu safray maca man ruux miciisa buu saafara nabigu la safray yow nabigu la safray waa Soomaali ahaan nabigu yow la socday markuu shaam aadayay yow la socday wuxuu la socday adeerkiis iyo niman safaray ah su-aasha afaraad man ruuxeebaa ra'aahu nabi muxamed arkay fii safratihi sida loo shaqala shalna waa soo sheegnay siinka waa la kordhigaa fa'dana waa la reebayaa fii safratihi nabiga safarkiisii yaa ku arkay al-uulaa ee horreeyey al-owlaa carabiga haddii la kordhigo hamsada owlaa la yidhaahdo macnaheedu muxuu yahay sida habboon weeyaan al-uulaa haddii hamsada la godo wowga la reebana muxuu yahay horreeyey wey hadda horreeye baan ka hadlaynaa al-uulaa ee horreeyey su-aasha afaraad maadaa maxaybuu akhbara u sheegay raahibku camahu nabiga adeerkii muxuu u khabray raahibka way faacilka akhbara yacni ninka raahibka baxiira la yidhaahdo adeerka nabi maxamed adeerkiis macnaha nabiga adeerkii oo abu daaliba muxuu sheegay waa soo marna wuxuu u sheegay wuxuu yidhi biannahu sayakuunu aakhira alambiyaa haddii la arkona la ogaadana waa la dili doonaa ee celi buu yidhi su-aasha ku xigta maadaa maxaybuu dalaba ka dalbay raahibku minhu adeerka muxuu ka dalbay inuu celiyo su-aasha ugu dambayda bimaadaa maxaybuu istadalla u daliishaday raahibku calaa nubuwatihi nabiga nabinimadiisa ou gartay muxuu u daliishaday bicalaamaatin allatii fii kutubi ahli lkitaab waanagii soo marayna weeyaan الخلاصة هذا الكل لصو أروريه خلاصة وحويان وإرجو لصو كوبوي كان وحو هاي النبي محمد في سقره يرانتي سدح ذا يرعى مد إلالية القنمة أرجع مد إلالية لأهل مكة تأو إلالية
وسافر النبي محمد وصفر صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أذرك اللي تركي صبو صفري والحال هو نبي محمد ابن 9 سقال إنن كيدو يهي سقال جر محان صامر رسيد الراجعة طبعا يلا بس نبو جري أو ابن 13 أما طبعا إيو سدح أما السقال لكن محا لوبناي طبعا يلا بس نبو جري ورآه النبي محمد وحا أركي الراهب ننكي راهب كابا أركي بحيرة الأورنجري مقعيس وعرفه وقنصدي فيه النبي علامات النبوة نبي النمذا علامات كيدو كو قنصدي صفرته نبي صفردي سي الثانية لباط الدرس السابع ودي كرتين الدرس السابع والله معناه درسي والله وكدي وقت درسي أنا معوك هذا ليا هذا الدرس السابع ومبتدي خبر هذه ومتدك لها الدنا صفرته نبي صفردي سوية الثانية اللبات إلى الشام أو نبي صفري أنا مبتدي خبر أسكا قدقنا في 25 من عمره وجار مجلوس ما أو ماشو كتعلقي سافر ذا كدن بيدويان سافر النبي محمد وو صفري إلى الشام بو صفري في 25 لباطن يشن أو من عمره صلى الله عليه وسلم لباطن يشن مركو عمره سمر أيو النبي صفري شام بو هدن صفري مرة ثانية مر لباط الأول وصمرني مر لباط والنبي شام هدن صفري سقول جرا ماقا لباطن يشن سنو محو مركان دم أقول صفري في تجارة لأجل تجارة أما في تجارة بسبب تجارة تجارة سبب تدبو أقول صفري تجارة داسو للسيدتي سيدتي أصغناتي خبيجة تأهد ويان خبيجة تجارة إلهاد أو مركز دم أبح سفر كان نبي أبح أيو صابو كدعي وحال يرى أبو طالب النبي يمد عليه الصلاة والسلام أبو طالب وشلا والنبي صام مرين فقير أبوها وحوم هايسن نبي السوكري صلى الله عليه وسلم مركز يري محمدو وويلكيسي وادارك اوها وادو جيداه دقالم هيسن ابو يري gabadhan waxa way ganacsadaha oo ganacsatada ah oo la yiraahdo khadiijana xoolaheeda iyo maalkeeda ninba ninku ka amaana badan yahay bay u dhiibataa qof gooniya ma doonanayso laakiin qofkii ay maqasho inuu yahay qof aamina oo wanaagsan oo maalka lagu aamini karo bay tiraa xoolahan soo safriyo wadanka geeyo ribaxa iyo mushaar bay macna u ballan qaada maad u tagtido noo weydiidad buu yiri oo noo shaqaydid si aan wax u helno oo adigu sanadkan dadka loo dhiibayo xoolaha maad noqotid nabigu calayhi salaatu wasalaam arintii buu yiri waa okay buu yiri arintii ba qadiijo loo soo gudbiyay wiilka baa jira baa la yiri hadda ma u dhiibaysaa sanadkan asaga xoolaha wade nacam bay tiri waan u dhiibaya diyaar baan u ahay weeyaan markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolihii buu waday baa la yiri waa waday weeyaan waxaa la socday adoon iyadu ay lahayd oo magaciisa la yiraahdo maysara waa adoon khadiija iska lahayd weeyaan maysaro nabigu u khidmaynaya marka laakiin nabiga mas'uuliyadda loo dhiibay calayhi salaatu wasalaam waxay waliba u ballan qaaday mushaarkii inta kale la sii jiray laban laabkiisii u ballan qaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu xoolihii buu keenay faa'iido aan weligeed laga helin asagoo wada ayuu xoolihii keenay khadiijo calaamooyin badan bay marka aragtay waxyaabihii ay aragtay iyo arrimo badan oo u sheegay ninka la yiraahdo qulaamkeedii oo maysara ahaa oo amaanadiisa iyo wanaagiisa iyo daruurtii qoraxda ka celinaysa iyo waxyaabo badan oo la kulmo u sheegay cala xaasil asaga naftiisuna markay arrimihii isku daratay ay go'aan qaadatay waxay tiri waxaan doonayaa nabi maxamed baan rabaa inaan guursado calayhi salaatu wasalaam sidaas baan jeclaan lahay bay tiri ee si iigu suuragalta waxay u soo dirtay gabar iyadoo u shaqaysatay qof bay u soo dirtay baa la yiraahdaa markaasi gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay arintii u soo gudbiday nabigu wuxuu yiri gabadha hadalka waa u soo bandhigtay qadiijana uma sheegin ka waran bay tiri guur iyo qof wanaagsan oo sidaa ah markaasuu yiraahday maanaan waxaan ku guursado horta xoolo ma bahayo buur anagu xoolo ma leeyahay buu yiri maya xoolaha dhan ayadaa bixinaysa oo waxa qarash adiga kuma saarna nabigu waa okay buu qadiijo markii arinteeda loo sheegay nabigu waa aqbalay ala xaasil calayhi salaatu wasalaam
nabigu marka uu aqbalay Khadiija isla markii mawcid bay u qabatay adeeryaalkii iyo dadkii mas'uulkana way u yeertay guurkii iyo nikaaxii baa dhacay midaas weeye midda laga hadlayo Khadiija cumrigeedu markaa wuxuu ahaa 40 sano nabiguna 25 sano buu jiray calayhi salaatu wasalaam nabigu hortii laba nin bay soo guursatay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Khadiija guurkoodii halkaas uu ka bilowday waana loo sheegi doonaa insha Allah في 25 من عمره سافر إلى الشام مرة ثانية في تجارة للسيدة خديجة وكانت خديجة وحيها ذات شرف مد شرف صاحبة ومال تستأجر الرجال نمنك أي كريسان جرتي في مالها حوله هذا معناها ضد بأجرك سيجرتي ويان أصى شغية وقد اختارته النبي محمد بيدورتي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل الشقدان بيدورتي نبي يتري شقدان صوغبو لأنها قديجة سمعت وحي مغشي بصدقه نبي الرنتي سي مغش والرنلو وأمانته هنا وي مغشي وأخلاقه الدبيعوين كيسي الشريفة ونكسندنا وي مغش وكان معه النبي التي كيس وحاها الله صعودي خادمها خديجة خادم كيدي يادون كيدي اللي أورنجري ميسرته فباعا حوله بي إيبيين واكوه نبغا إيو أدونكي وحوله أيقو أيودين وابتاعا ويسو إيبسدين لبي كالتا بدأ عدي وحبي كسو بدل قاتين وابتاعا وحبي كسو قاتين ويان والرجعا ويصول لابتين بالربح فائدة إلا صول لابتين ربحاسو عديم وين هلكا waxaa noogu dhamaaday darsigeennii lixaad ee kitaabkeennii siirada rasuulka khulaasatu nuur al-yaqiin ilaahay nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh